وهو يا أيو وحده في طبني تدبتشر كوسو طبعين أي واحد صوب برين مركز ولا ورنا قت الجراوستيو أفر حبة كروري دقيقة قصة هذا أحبط بلا وتمعنا عنق حتى توري حتى أقول في توصل توري يقول عرّا مرقات يالي لا معنا وأنا كحتى نلزوري حتى رجع مال والبيجو يال شرب كولا دك درم بعديها سنتوب على تلي حلو على تاني مركز مترين وقريد وضد واحد كجري مالها جناح سوحة وين ما دحمرين ما أودنا ما أنت ولا اليوم لن كستدعوا ولكن gabadhii maxkamadda la hor keenay waxay tiri meelan fadhiyay malaha cid dhar baaxday oo daankayga taabatayne ma aysan jirin adiga dartaa inta aad ku jirto ayaa tagi doontaa goob ka soo noqoshadeeda aadan go'aamin karin laacibow wax maqal kiiskan dilka ah sababtiisa ka waran hadiiba ay tahay in gabadha eedeysana xiinay uu jacaylka u qabay xiriir wadaagga ay yihiin walaalkeed danaanadiisa uu qof u dilay iyadana saabiriin hadda waa iska diiday in wax xiriir ah ay la leedahay isaga kormeer saddexaad ciidanka ilaalada deegaanka ee dawladda hoose xamar cabdiraxiin nuur aadan dukaanka xaafadda oo ay milkiilayaal ka yihiin saabiriin xasan faarax iyo reerkeeda ayuu aad ugu agdhowaa saabiriinna waa ganacsataa dukaankay iibisaa isagana maba laga agwaayo waa u sheekeeyaa kiiska dilka aniga ma gelin shaqana kuma lihi see wax u dhaceen yaalweero oo socdaana aniga isoo galeen oo tooriyey wataan gurigayga agtiisa taagnaan aniga meel dheerba ma jirin waa isoo galeen ciyaalkii adiga waa xoogaa yar waa midiye iyo wax bay dhinacii gula soo aadeen waa ka cararay gudaha galay qorigoo guriga ku jira iska soo qabsaday banaankaa istaagay ayagoo markaas u sii jeedo luuqa halkaas camal hoos u sii galeen afar xabba kor u ridi xaggaas camal ay taagan yihiin inta camal afar xabba u ridi kadib markay daqiiqada ka soo wareegay inta xabado kale badanaa maqalnay oo weliba aniga dhigteeda ay ku dhibceen xabadahaas baara 3 saac ayaa 2 saac waxaan soo harkaas waxaa maqlay waxaa sheegtay inaad qori soo qaadatay ujeedka qoriga soo qaadatay maxay ahaa ujeedka waa kuu sheegay ma rag haddii marba ciyaal weerar ku soo galaan midiina ay soo qaat ay wataan hub wax dilo qasab waay markaas waxaa waaye markii xabadaha ridaysay nafsadaada ku badbaadsanaysa miyaa nafsadeeda kuma badbaadsanayna xabadaas ciyaal weerada markii hore aan soo aadin gurigaygaan ku orda guriga markaan galay qorigayaa soo qaatay banaankaa imaaday ayagoo luuq saas u sii galayaan afar xabba kor u riday wax kale oo aan riday ama wax aan dhibaateeyey ma jiraan marxuumkana wax dhibaato goormay maqshay markii inuu qof dhintay markan isla habeenkiiyaa maqlay meelna maba aadin oo aniga gurigaygaaba joogay meel aan u dhaqaaqayna ma laha marxuumka ciyaal weerada midiyaha watay ee xaggaaga soo aaday muu ku jiray mise qof ka baxsan oo ciyaal weerada wallaahi midaas ma sheegi karo ma garso ilaan qofa aqaano oo dakana naga dhaxaysa ama cuqdada u qabay ama dagaal hore naga dhaxay ma aha Soomaa aqoon Allah marxuumka meesha ku dhintay meesha joogtay maxaa u dhaxay oo mitir ama talaaba masaafo saayida u dhaxaysa qofkii uu dhintaa maqashay kadib maxaa talaaba oo sameysay maxaa sameysay wax dhaqdhaqaaq oo sameeyay ma lahayn xabadaha ride iyo qofku uu dhintay aad maqashay kadib wax gurmada muu fiis maadaama qof askari ah wadana garsoor midaas laakiin aniga maba ogeyn Soomahan marxuumka meesha ee xabada kula dhaceysay aniga maqal lay igu soo gaar walaalka saabiriin oo xanuuno lagu tabayo iyo xasan cumar maxamed waqooyi ayaa hadla aan wanaagsaneyn oo aflagaada ah isdhaafsaday 1xb dartiis ninkii waqooyi ahaana wuu yara carooday wuuna dacwooday waliba ehelka reerka laakiin sidoo uu isaga rabay ma noqon waana tagay isagoo go'aansaday inuu ehel wacdo koox walaaladiis ayuu la soo noqday dhalinyaradiina waxba isku mareeban gacanta la isla galay mucaashaqii uu madax maray cishqiga waa qaadan waayay dharbaaxshada loogu shubay saabiriin iyo duulaanka lagu yahay reerka uu gabadhooda ilaashado waa is celin waayay gurigiisu u baxay goobtana ka agdhawaa AK47 ayuu la soo noqday xabado uu jilibka u dhigtay tirabeelna ahaa una ka riday qorigiisa ayaana sababay geerida marxuum maxamed yuusuf xasan oo 18 jir arday ahaa qofka shaqaaqada ay ka bilaabatay xasan cumar maxamed waqooyi iyo maragyo kale oo goobjoog ahaa ayaa garsoorka ugu waramay bilowga shaqaaqada ku dhawaad 4 saac socotay la isku tol wacdayna iyo gunaanadkeeda
yacni siduu u dhacay dilka marxuumka. hortiisa anoo maraayo yar guriga agtiisa fadhiyo oo isheeg ay ani macnaha yaa ku cay yar cabdi la yiraayo guriga hortiisa fadhiyo gurigiisa inta waaye gurigan waa iska soo horjeeda macnaha laba baloogo la iska soo horjeeda waaye macnaha wuu cay macnaha wuu aflagaaday waalidiinteedu cay walaashiisa ka weyn ag fadhiisa walaashiisa ku dacway marqaatiyaal ay leedahay walaashiisa sidii wiilka ila dhaqmay ila dhaqanta ayadana way aflagaaday maamadiya u gudba maamadiya idarbaaxda ayadana iyo barta aflagaaday ugu sii gaarsiday marqaatiyaal ay leedahay macnaha dad badan oo ehel barta jooga macnaha niman ehelkayga wacda marka xaydhan waa ku imaanaynaa bartiya buuq iska dagay guri kale abtigaya u socdo barta isha ku yaala guriga abtigaya iska tagay maqribkiya barta maada xaadha ninka daayacayay oo dhalinyarada ahaaya rabaay haduu soo kugu feeneen ii keenaa dhan ninka iska dhicinay wax yada iyo wax hubaan aan ma wadan markaas macnaha wax marka macnaha intaas ninka yacay bis arab macnaha ina gacanteed bis iska dhiciyaa rab aan macnaha wax yada iyo wax huba shan nin bis ay la socoto walaalay ehelkayga macnaha barta igu timaad oo rag banooni dheelo oo sportisa macnaha wax askara aan ila ma socon macnaha barta saasta markay ku yimaadeen cunugii day waalidiintii tacaya xaafada Toorey kala soo bax cunuga isla doodeen Toorey saas ugu dhaay isagoo ahay macnaha oo ragga ay sheegayeen kow ay isla doodeen isagoo ahay barta markaas ay isla doodeenay barta isha gabadha fadhiday gabadha yad la gaarsiiyay macnaha ninka xilligaas gaarsiiyay saacadaas ma sheegi karaan ilaa meesha dad badan isku soo dhoobtay isha gabdho ilaahay wuxuu ila ogyahay inaan xataa gabadhaas sheegi karin oo wax beena aan ka sheegin macnaha oo wax beena aan xaqirin aan macnaha kitaab jaamaca ku mari karaa ee waxay nafteedu ugu ogtahay oo waxaana maanta oo isha kambar mareysa mala ninka la dilan waa nin walaalkeeya oo aan ilma adeerana macnaha nin maanta nin walaalkiisa oo meel cilla ugu tagaana ma jiro macnaha anoo dhibban oo halkaasna macnaha iga barsan meeshana xataa Toorey iga gaarta oo dhiig iga socda xabad bilaawata macnaha oo cunuga xataa Toorey xataa ugu dhufto saas Toorey ugu la carara marqaatiyaal ay leedahay macnaha oo anaka xitaa nal soo rido xitaa dhagax meel walba igu yaal sida anoo macnaha xabad markay dhacda dhalinyaradii carartay anakana waa soo wada cararna macnaha Toorey iyo dhagax iyo sheeg xabada naga daba dhicida macnaha ninkaan ridana ma ku dhaaro karo mana sheegi karo meel xabad oo ninku ridayana ma arkeen kitaab jaamacan ku mari kara waa wuxuu ilaahay ilo ogyahay yarka cabdi ee macnaha ku aflagaaday walaashiisa u dacwatay marka wala ma midaas ma ahana mid kale oo ka weyn jirto macnaha oo sheeg midaan la dharbaax mid ka weyn jirto oo ayadana ag fadhiisa macnaha gabadhaas u dacwatay gabadhaas u dacwooy waxbay ka qaban weysa waxbay ka qaban weyda ka galay dhada macnaha soo rabo ku caaya maamadii u dacwooy kadib hooyadiisa u dacwooy hooyadii sidii ay ugu dhaqmatay macnaha rag askaraayo ciidanaya marqaatay oo barta xaafada degan macnaha halkaas sheekada ayadu noo joogto gabadha markii la dharbaaxay ma joogtaadi ani barta taagna Toorey ugu taalasaana dhaay macnaha gabadha macnaha rag dhalinyaro badan iyo dad badan isku sumuuma macnaha xilligaas in gabadha la dharbaax ma sheekay meeqa saaceed xilligaas aniyada ugu taalaba saan gacanteeda dhiigayeedba gacantaas u haystay macnaha waa taseen ugu ninka eedeysanaha hada dilka loo haysto goobta ma joogo markaas waqtigaas ma qiyaas karo wallaah ma qiyaas inuu xilligaas joogo ma sheegi karo meesha sababtoo dumar iyo dhalinyaro iyo cayaal maxaa kala socotaa ninkan dilka geystay iyo gabadha la joogtay inay sheeko wadaag ahaayeen inay xiriir ka dhaxeeyo waa ogaay ani waa la socday oo nin xaafada deganaaba ahabo dad isjecel oo xiriir ka dhaxeeyo mar walba sheekaysto ninkaas maalin walba aan barta ku maro wuu ahay macnaha oo barta fadhiyo oo la sheekaysto gabadhaas wuu ahay macnaha laakiin ani ma ogeyn macnaha inuu isaga qori doonto xabad rido waxa aan ku dhaar kara ma jirto macnaha maaha oo malay karo macnaha oo dhaar maanta ku hubi ninka dilka geystay loo haysto ma joogay habeenkaas walaa bila inuu joogo in kala ma sheegi karaan ma cadeey kara taas sababtoo ani ma fiiraaniyada igu taalay ninkaas ay sheeg hadalaas aan dhana macnaha boor garansanaaba aan yada kugu dhufta ma taqaana waa aqaana cabdi la yiraahdo bartuu joogaa waa mid ka macnaha marka hore aflagaaday caayay oo waalidiinta isku gambaday yeelkiisa rag kale oo dhalinyarada wuu wata macnaha hada kiiskan oo adiga yadan lagu dhuftay ma ka heshiiseen miswaalu waxaan ku heshiinay mala bartiyaaba ugu tagaba aan bartiyaaba ugu tagay xitaa uguma soo laamin dib daba markii la yiri 5 saac xal yiri nina barta ku dhinto sheeg in adeerka yar kale waxa soo waxa 4 saac bar mar aheed yar oo nabasuguda ay soo wac oo waxa uu dhahay waraa ma taqaana dhalinyarada la socota sheeg yar kamid ah isku cidtiina meesha ku dhinto isaga ay dhaha macnaha oo eheltiin ma taqaana ninka sawirkiisa ku soo dira ma yaa dhaa isaga xitaa waa weydii kartaa bartan waa ka weydii kartaa macnaha markii lagu soo wacayo lagu sheegay qof arinta lagu leeyahay goorma ahayd adi waxay adi 4 saac bar meelahaas ahayd markaas la sheegay ya markaas xaafadaaba jooga xaafadaaba aadaba ani macnaha xaafada hooyaaba aadaba xaafada aadaba macnaha ilaa dharkii sheeg dadka xabada markii lagu leeyahay waa kala cararna Soomaan nin walba xaafadiisa uu aado wax kale oo rabshaan iskuma soo laabo mikrofonka iskarig Everest aniga haweenkaas horta ragga salax u qabtaa ma fahmin salaxna waxa waaye hal saac dheelinay laba saac dhamaatay ragga ugu dambeeyay doodii ku baxay doodii ilmaan bacana arkay waa daba galay marka
kadaba gaaray marka waqooyin ilaa ninka isla doodaana arag oo isla doodaya oo murmay aw kor tagno kabacdi ninkii oo dhaqaaqay oo baxay argan kabacdi 2 daqiiqo kabacdi gudahooda xabadaha ka warayna ani soo ord kabihii salaxay watay soo orda xaafadda la ka waraa qofkii baxay ma qori soo qaatay ma sheegi karaan waa baxay waxa soo qaaday ma sheegi karaan kabacdi xabadaha dhaceen ani kabacdi waa soo fakadan orodka soo orday ilaa xaafadda meesha markii maxaa ka dhacay meesha kabacdi 4 saac mal miyaali soo wacay meeda ayaa loo meedkii yaa waadaniyo Telegramka ka arkay marka cunug xaafadka oo digan oo asxaabna saaxiibana xabada qof kiriid mid qanaadi xabada qof rida may Everest anaga 2 saac bunun waxa leeyahay 1 saac waxa leeyahay bunun 2 saac ka soo dhamaanay marka ka soo dhamaanay anaga salax u dhameynay rag saaxiibadii way soo baxeen salaxa marka lacagta anaga soo direen ani yarka saaxiibkii baabjay lacagta soo direen meesha ugu dambeynay marka laamig maana buuqa dhacal la rag saaxiibada intay ka baxeen Allah waa soo raacnay laamig buuqa imaan buuqa marka imaanna dad isdagaal aragnay geeska istaagnay gees marka ka istaagna waxa aragnay cidii isdagaal iyo waxaana soo bursadeenba waa orodnay marka orodnay ilaa iyo waxa tagnay isgoyska waa soo noqon marka soo noqonayna ma xabadan ugu soo furo isgoyska toos ugu sii leexnay kadib waxa la qof dhinta Allah xabada cid furtay ma taqaanaadi ma aqaan marxuumka goobta ku dhimanay intee isku jirtiin adi marxuumka ma ogeyn baan salaxa soo joogay ugu dambeysay ay mikrofoonka dhigay Everest oo xasuusanahay dhaarta hadda la ilaariyay anoo galab 10 saac bar amaliyada anoo gurigeyga hortiisa fadhiyo tirdiin ah oo casriye ku cabaaya ayaa waxa dhacay baalka la yiraahdo wiil yar oo hadda inta jooga 2 wiil oo hadda inta joogta oo xaafadda ah oo isla xaafadda ayaa isku dhaceen markay isku dhaceen adiga buuq badan meesha ka dhashay waa soo kala wadnay marka soo kala wadnay waa kala dir adiga hadhowtii markay ahayd sidadkii ayaa waxa imaaday mid kamida oo waxooga dhalinyaro ila socdaan kan kalena gurigiisa waa iga soo horjeedaa meeshii waxaa ka dhacay haddana buuq nin hadda baalka la yiraahdo ninka oo gacan ku dhiglaha ah na wuxuu la fadhiyay gabar oo xaafadda macnaha oo buuqa ay wiilashan ku dhalinayaan kamid ah gabadhii asagoo la fadhiya adiga meeshii buuqa ka dhacay dadka dhan waa soo istaageen adiga meeshii inaan kala celinaa anaga xaafadahaan u soo baxnay anagoo meeshii taagan oo wixii kala celinayna wixii haddana waa isku farabaxsadeen markii isku farabaxsadeen aniga xagga kale ka istaagay ninka oo gacan ku dhiglaha ah oo macnaha eedaysanaha hadda oo gacan ku dhiglaha ayaa wuxuu sameeyey gabadhuu la fadhiyey hal mar oo orday xaafadiisoo ku taalla luuq dambe ayuu aaday macnaha halkaas ayuu wuxuu ka soo qaatay qori AK47 hal mar asagoo ordayay ciyaalkiina waa xagga kale markii dadkii adiga waa buuqbuuqii oo batay xagga kale u yaaceen macnaha waddo oo 20 oo haywaago laamiga ka soo leexatay saas u qaadeen saas markay u qaadeen ninka gacan ku dhiglaha asagoo ordayo oo nagu imaado annagana waddadii dhexdeedii meeshii oo buuqa ka dhacay taagnin macnaha wartooga dhaha buuqii waa dhamaaday wixii waa dhamaaday inay ka joogniyo meeshaan adiga hadda macnaha xabado iyo wax lagu soo riday qoriga xitaa la orday oo iska kaana filqa markuu iska kaana filqay qorigii la gudbay ciyaalkana adiga waxay noo jireen adiga macnaha adiga blog oo kale camal laakiin waa loo jeeda waddada haywaaga waa caddaha macnaha layrar iyo waxna waa ku xiran yihiin markuu cabaar adiga 10 tilaabo kale ciyaal ka sii daba orday ayuu wuxuu ka daba riday xabadahaas waa dhulkay ku dhaceen kuwii koowaad saddexdii hore oo baalato ugu horeysay oo ka sii haddana 5 tilaabo kale camal oo ka daba qaaday jilibkuu la dhigtay waddadii ay saas ciyaalka ugu sii ordaayeen oo xabadii ku riday macnaha dharam adiga 5 baaloto 6 baaloto aniga markaas ma tirin oo ku riday waddada waa istaagay waddadii hore u qaaday dib dambana ma uusan ugu soo laaban wax yar adiga 15 daqiiqo bacdi markii ay dad waddada ku imaadeen anagu bartii wali taagan oo buuqii iyo wixii iyo xabadii iyo wixii dadka dhan ay la yaabeen xaafadda isu soo baxay ayaa dad socdaan loo yimaadeen waxay dhigeen meeshaan meeyda yaal saas ayaan haddana waxaan u tagnay ninkii midka ay marxuumkii dhintay ayaan u tagnay gudoomiye sidaasaana wax u dhicin aniga intaas goobjoog ka intaasaan ogaa gudoomiye xilliga oo waxaan dhacayaan
waxaad sheegtay in aad joogtay markaas yes gabadha ragga shukaansanaya adig kamada mid ahayn Soomaa ma ka mid ahayn goob lagu qayilay miya maya haddii marka ninkan uu gabadha shukaansanaya sa sheegtay warkaaga waxa iga baxay in gabadha shukaansanaya ayaa isaga iyo gabadhu waa isla fadhiyeen Soomaa haa dadkan kale oo dhacdo macnaha dhacdaas ka horreysay la leeyahay goobta uu wax ku shukaansanaya ma ahayn meel kale ka dhacdo Soomaa ma isla goobta ka dhacdo wax quseeyo asaga iyo shukaansigiisa miyay ahaayeen ma ahayn wax sababaayo in macnaha ninkaan qori soo qaato oo xabad uu dad ku rido oo meesha saacadaas ka jiray ma jirin Soomaa sharaxaad u baahan taas waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii adiga aad dhahaysay ninkan odagaa waa qabtay waa fakaday xabadu meesha ku riday isla qof markaas xabadu ku dhacday adiga aad arkaysay ma jirin Soomaa maya markuu fakanaayo oo meesha u socdo oo uu ragga ka sii daba ordaayo qof uu dagaal kula jiray oo inuu dilo uu rabay oo adiga aad ogeed ma jiro Soomaa ma jiro sidee ku dhacday in aad aqoon u leedahay in xabada ay ku dhaceen dhulka inaad aqoon u leedahay in xabada ay ku dhacaan qof in aad aqoon u leedahay in ay xabada kor loo rido dhawaqa sideed ku garan weysay oo qof oo ku sheegay bayaani maxkamadan u sheeg taas waa ku sheegaya waxa waaye alkiliyado ninkan xabadaha saddexda markuu dhulka ku dhuftay markaas waa uu socday waa orday macnaha oo markuu annaga naga soo farabaxsaday ahayd macnaha ma fahmi isagoo ordaya saddexda xabad riday dhulka ku dhaceen horow tallaabooyin kale u sii qaaday lugahow kala daba marsaday jilibkoo dhigtay wadadii ay baalkiliyado ay dadka ay ku sii carinayeen ilmahan ay ku sii ordayeen oo xabadihii hore dhulka ku dhacay ka sii ordayeen moogtaa wadadii kaliirkeedu ku qabtay ayuu toos u raacay macnaha xabadaha kale hal baloog ayuu wuxuu ka doontay qori AK ah gabar la dharbaaxay darteed saas miyaad marqaatigaada furkaadi uu yahay haa sidaas aan ugu fahmay cidda gabadha sida tooska ah u dharbaaxday iyo marxuumka isla qofkii ma aha soo ma aha ma aha marxuumka iyo eedaysanaha wax xiriira ama isqabsi ee uu qori ugu doontay ma jirin soo ma aha maya ani ma ogeyn taas madana gudoomiye aniga xaafadan deganaay waxa u dhaceen yar waqooyi leeyahay ayaa gabar la dagaalay gabar dharbaaxay yarka Cabdiraxiin gabadhu la fadhiyay waa uu booday darisaan anigu dhinaca soo uga xigay aniga qoriyo guriga taf ka soo yiri annagoon soo baxnay nimankii dhalinyarada aqooyi iyo raggii kala raac sii dirnay oo baa kale maaska taga aan niri ayuu soo ordayo garabka igu dhuftay Cabdiraxiin gacantan qabtay wuxuu waa iska kay filqay yar la dhasay daba ordayo booska wata daba orday oo qori kolba oo ka soo qaado daba socdo xabado la xabadoodey oo dambeystay waa la galan koosaday saasoo ninkaas xabadaas ugu dhaceen intaas anaga sheelo furanta horay hamina badan ayuu shukaansigu u jiray Soomaa ha ninka master sidii ma la way jirinba haminkaas marka dhacdadaas ka horreysay ayaa aad adiga goobjoog u ahay Soomaa ta hore goobjoog u ahay Soomaa oo Xasan waqooyi uu dadka u soo wadanayo ma kayn okay midii dambe joogta Soomaa ha midaasan soo habeenkaas ugu dambeyntii dikan oo qof xabad ku ridaayo adiga ma arkay Soomaa waa arkay soo xabad ku ridaayo ha shakhsigaasi asaga wax ka dhaxeeya ogtaa ma jiro Soomaa wax ka dhaxeeya ma ogi shakhsiga uu dili rabo adiga waa ogeed inuu dili rabo Soomaa ma ogeyn wax dagaala oo aad ogeyd adiga oo marxuumka dhintay wiilka yarka ah iyo asaga ka dhaxeeyay ma jirin Soomaa ma ana qombo marxuumka dhintay waxaad tilmaamtay waxaad sheegtay in buuq aad la kulan ma jirtaa meesha buuqa ama qaylada ay ka dhacayso iyo gurigaada intay isu jiraan iska soo horjeedaan xilliga buuqa oo xilligaas ayada ah meeqa saac ay ahayd hal saac barxan leeyahay hal saac barxan buuqa markii uu dhacay ee aad aragtay waad ka xarootay gurigaadaad ku xarootay Soomaa ma xaroon waa soo baxay ninkan sii socda sii ordaya iyo nimankan sii socda aan la kulmo haddii aad tilmaamtay
ama aad sheegtay in dadkii buuqa goobta ka sameeyey ay iska tageen eedaysanahana aad tiri goobtuu ku sugnaa waa uu ka tagay mas'aladaas ayada ah soo ma dhammaanin goobta lagu katay anuu bartii aan taagnaa dhacdo ka dhacay mar haddii uu ninkii aad lahayd dhibow geysana uu iska tagay dadkii goobta joogay oo buuqa si gaar ah ayagu u sameynayana ay iska tageen goobta ayada ah soo ma ahan goob lagu kala waa daba kacnay ninka sida xabad u sheegan daba kacnay ninka meedka u tagnay midana gudoomiye waxaan ku yiri oqooyi oo wata raggan wata yimid gabadho dharbaaxay gabadho markuu dharbaaxana wuxuu aaday ninkan inta orday wuxuu aaday qora doonto waqooyi waa ku soo baxnay waa aan tirnaa waxaan ka nidhi war maasan ka taga dagaal iyo maasan ka dhicin ayakiyaan macnaha dadkan kala celin oo ordaba inuu wax soo qaadayo inuu waa weynba sidaan u taagan oo ninkan ordaayay oo qoray la ordaayay garabka waa qabaan maagay garabka ugu dhuftay sidii uu saxbay sidaan u daba kacnay sidaan ninka meedka aan u tagnay adiga ma waxaad ku dhaaratay in aad og tahay bixidda uu baxay eedaysanaha inuu qori doontay mase waxaad ku dhaaratay eedaysanaha oo caraysan inuu gurigiisii aaday waxaan ku dhaaratay eedaysanaha inuu ninka dilan ku dhaartay eedaysanaha iyo dadka aad leedahay xabadow ku riday wax xurgufa ama colaada oo goobtaasi ka dhacday ma jirin Soomaha ee adiga aad arkaysa ragga dagaalka ka gaca gabadha oo dharbaaxay way macnaha laakiin asaga iyo ragga isku dhicido ma arag anu laakiin gabadha iyo ragga oo isku dhiceen oo gabadha oo dharbaaxay oga ninkan oo orday qor doon waxa marag furkaada marka su'aasha ugu dambayso marag furkaada waxa waaye eedaysanaha gabadhi dharbaaxdintii ku dhacday ayuu falcelin ka sameeyay waaye Soomaha aniga waxaan ku qoreenay meesha la yiraahdo Bakaaro oobiga laga soo wacay saldhigga hodan waxay soo wacay baaraha saldhigga hodan ay soo wacay wuxuu yiri nin gacan ku dhiiglaya eriyada ku jira biisa ku imaanaya asaa ku wadaya guriga ku geenaya ninkaas la wada soo wada saldhigga hala keeno albarako abis nagu balamiyay albarakada ugu imaanay waa raacnay guriga ugu tagnay oo markaas oo dad bulshada badan oo jooga guriga kaligiis ma ahan dad badan la joogay waa naga diiday inuu raaciyo waa naga diiday waa naga dhigay adeeg cabaaro naga diiday markii dabo abtiga la wuxuu yiri waa marsi weynay xoogna ku wadnaa macnaheedu waa suurtagal weysay markii dabo waa si aqleysan ku wadnaa waxa dhaana nakeen wax dhib ku gaari mahan sidaas la ugu tagnay salligeena ku wareejiyay intaas kala socda salliga hodan ninkan marka warbixintiisa ay idin la soo wadaagay marka hore waxa koowna la soo wadaagay baaraha ayaa wax lagu soo xiray duqa aabis lagu soo xiray sidaas oo aabis lagu soo raacay gurigeena oo keenay adiga marka ninkan soo qabashadiisa lagu diray waana soo qabatay waana xirtay intaas marqat qaanay Fariis waa tan Sabriin Xasan Faarax oo maxkamadda la hadashay waxba kama jiraan ku tilmaamtay sheekada xiriirka iyada iyo eedaysanay Cabdiraxiin dad marqaatiyaal ah oo la dhageystay iyo xafiiska xiraalinta waxay sheegeen in gabadha uu kiiska ka bilowday in aad tahay maxkamaddu waxa u sharaxdaa sidee wax u dhaceen adiga iyo Cabdiraxiin waxa idinka dhaxeeyo waxa adiga lagu geystay cidda kugu geysatay Cabdiraxiin falcelinta uu sameeyay iyo dilka wixii meeshaas ka dhacay wixii aad og tahay adigoo soo koobay waxna aadan ka tagaynin maxkamaddu sharax okay aniga waxa joogay dhacdada galabta dhacday mid habeenkii mid goobjoog ma ahayn galabta waxa dhacay waqooyi iyo wiil xanuunsan oo ilka soo cabdi inay is afgaareen waxa gacan qaada ma dhicin cabdi waa baxay magaalada aaday waqooyina xaafadu dhinac ka deganaa xaafadu sii aaday galabta markay intaas aan habeenkii subaxii exam la dawlad exam school la imtixaan diyaarinay habeenkii wixii dhacay goobjoog ma ahayn wixii aad goobjoog u ahayd ee galabka dhacay maxkamaddu sharax okay labadaas wiil inay iscaayeen wax ugu ma markasta iscaay jireen xaafadda isla degan wayna la kala celiyay dadka meesha taagnaa wayna kala tageen waqooyi cabdi maxaa dhaxmar galabkaas galabkaas ana banaanka taagnaa waqooyi cabdi bas taagnaa in nin kala celinayo waqooyi cabdi
maxay isku dagaaleen waqooyi iyo cabdi waxay isku dagaaleen cabdi wuxuu ciyaaraa 1xbet waqooyina yani wuu hayaa qof u sarifaa koon haya waay wuxuu dhahay lacagtaa kuu soo diray ma arag markaasuu dhaha war naga tag garaawistay isna wuu caay u jawaab cabdiraxiin markaas ayada ma joogaa goobta maya laba waqtiya kala tahay xabadaha marka habeen waxay kala tahay xabadaha markaa maqla habeen cabdiraxiin intuu ka soo galaa sheekadan meel uu ka soo gala ma aqaan aniga galabkaas goobjoog cabdiraxiin maxaa isku tiinaaday waxba isku mid cabdiraxiin maxaa idin ka dhaxeeyay waxba nagama dhaxeeyaan meesha imaado marqaatiyaal waxay sheegeen adiga iyo cabdiraxiinna sheeko wadaaga ahaydeen adigana lagu foodeeyey isla markaasna uu ka carooday falcelinna uu sameeyey adiga ma lagu dharbaaxay wax ka jira ma lahan aniga qoy xaafadaas la deganahay imana foodeynin labadaas wiil ayaga yaa foodiyey markaadii cid foodeysa ma lahan aniga habeenka exam u diyaarsanay banaanka ma joogin laakiin galabka intaas labadaas wiil af gaaray kala tageen cid ku dharbaaxda ma jirta adiga cid dharbaaxda ma jirto cabdiraxiin ilaa intee istaqaanaan adiga xaafadda intaa deganna korka arki jiray asii waqooyiba xaafadda degan yihiin aqoonna ma dhexeysa deegaan ahaan inuu xaafadda degan yahay annagan meesha dukaan ku leenahay cabdiraxiin dukaankiina ma imaada ma fadhiistaa ma fadhiisto caanii baraf iyo waxaasuu ka gadan jiray fadhi meesha ma jirin waqooyi xataa waa imaan jira uu gadan jiray meesha qof imaanin ma laha ganacsi u furantay dooda meesha ka dhaceysay adigoo saabiriin ah iyo cabdiraxiin inaa sheeko wadaag tihiina la sheegay wax ka jira ma laha ganacsi waxa aan ma dhex marin dukaanka yaa gadana dukaanka hadba dukaan guri dhex yaalo hadba qofkii maqlaaga badana laakiin iskuul dhigtaa hooyo gato marka sheekadan adiga ama bilaabato miya igama bilaabanin intaas qabano is dagaalana ma cid foodeysana ma laha xafiiska xeer ilaalinta iyo doorka cadeymaha galkan oo farshaxan leh dukaan ayaa ka muuqda geedkaas uu ku xigo cabdibilaha uu ag taagan yahay waxaa dhankan ka xiga dukaankaas waa dukaankii oo ay gadaysay gabadhii aan maxkamadda hor keennay waa dukaankii markhaatiyaashii maxkamadda aan hor keennay ee sheegeen in eedeysanuhu uu hor fariisan jiray waa isla goobtii markhaatiyaashii maxkamadda aan hor keennay ee sheegeen inuu dagaalka ka dhacay dagaalkii sababay in eedeysanuhu uu qori doonto kuna rido dhallinyaradii xaafadda degneed goobtaas ayay ahayd goobta si fiican maxkamaddu ay la fiiriso mudane guddoomiye garsoorayaal meeshaas ay marayaan dumarkaas dhankan haddii laga fiiriyo sawirkii hore marka cabbaar la socdo 20 talaabo bacaadka ugu horeeya oo bilaabmaayo oo ninkaas funaanada cad xiran oo tusaalaha ka soo qaadnay haddaan soo dhaweyno waa kana gurigaas oo jiingada gaduudka leh wuxuu ku yaalaa seedka dharkeenley laamiga ka soo sokeeyo wuxuu saaran yahay laamiga so meeshaan arkayno waxa waaye meesha uu jilibka dhiganayo waaye eedeysanaha meesha uu jilbaha dhiganayo waaye dhalinyaradu markay ordaan waxay ordayaan laamiga haddii dhinacaas u talaabaan gurigaa soo jeeda waxa waaye dharkeenley position ahaan in noola fahmo ayaan sawirkan aan ugu soo qaadanay laamigii marka mudane guddoomiye garsoorayaal sawirkan midig laamigii wuxuu u jiraa waa kaasaa gurigii oo jingada gaduudnaa tooska laamiga markaa qaado wuu noo muuqanaya wuxuu u jiraa ilaa 20-30 mitir laamigu u jiraa dhinacan kalena waa kana oo gurigii uu ka soo ordo uu ka soo fogaaday geedkaas cali garoobka hoostiisa ayuu meedkiisu yaalay marxuumka asagoo xabad uga taala jeegada xabadaasina ay ka baxday isha mudane guddoomiye garsoorayaal sawir gacmeedkii ka soo baxay xogtii ka dhacday ama baaristii xogtii ka soo baxday ama maragyadii maanta aan hor keennay maxdarka dhammaan duuduub wixii ay noo sheegeen oo farshaxan ah ayaan rabaa inaan inta kusoo gudbiyo mudane guddoomiye garsoorayaal waxaana u qaybinay 4 qaybood qaybta koowaad oo ah in eedeysane cabdiraxiin oo dukaanka joogo gabartiina ay bannaanka u soo baxday dhallinyaradina ay imaanayso wuxuu macnaynayaa sawirkan waa xogtii ahayd dagaalka ayuu ka sheekeynayaa haddaa u gudubna waxaa meeshaas ka muuqanayo darbaaxadii gabarta ku dhacaysay iyo cabdiraxiin oo ordaayo sidii maragyadu ay maxkamadda horteeda ka marag fureen sawirka saddexaad wuxuu na tusinayaa sidii markhaatiyaashu sheegeen eedeysanaha oo qorigii aa ka hawata iyo dhallinyaradii oo ordayso halka sawirka afraadna uu na tusinayo asagii jilba dhigtay xabadina ay ku dhacday marxuum horta qaabkaas ayaa wax u dhaceen mudane guddoomiye garsoorayaal farshaxankan haddaan ka gudbo sawirka marxuumka waa ka mudane guddoomiye garsoorayaal
17 sano jira jeegada xabad uga dhacday xataa kuma uusan jirin dhalinyaradii timid goobta ma isi qanaan aqoon isku meel lahayn markhaatiye ka furan dhalinyarada inta soo istaajin marxuumka aqoon ma lahayn u dhahay waxa kaloo kamid ah dhalinyarada marka laga reebo ragii odayaasha ahaa oo markhaatiye furaayay oo da'da ahaa oo dhalinyarada ka weynay ma taqaanin ma naqaanin inuu ayaga kamid ahaa iyo in kale ma la yaqaan balse xogtii iyo baaristii aan sameynay mudane gudoomiye ninkan dhalinyarada ah shaqo kuma lahayn wixii meesha ka socday wuxuu kamid ahaa bulshadii dariska ahayd ee buuqa ku soo baxday isbitaal Madiina warqadda shahaadada dhimashada loo yaqaan mudane gudoomiye garsoorayaal ee isbitaal Madiina soo saxeexan ay ku cadeynayaan dhimashada sababta keentay waxaa ku qoran mudane gudoomiye garsoorayaal isbitaalka waxaa la keenay lidhowta asagoo mid ah isla goobta ku naf waxaa ka muuqday xabad taasoo ka gashay jeegada kana baxday isha midig sabab muxuu mutaystay baraha galka oo ka tirsan CID booliiska Soomaaliya ayaa maxkamadda ku biiriyay inta ay socotay dhageysigeeda macluumaadka natiijada baarista gabagabada baaristeena mudane gudoomiye markii aad baarna kiiskan oo maragyada iyo ehelada iyo eedeysanaha iyo goobta dembigiiba aan tagnay waxay noo caddaatay in eedeysana Cabdiraxiin Nuur Aadan inuu falkan uu galay uuna gafay qodobka 441 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waa sida mudane gudoomiye ma jiraa tiri baara kale oo kiiskan wax ka qoray eedeysanaha wax ka qoray maya eedeysanaha wax ma ka qortay anaa ka qoray kuma uusan dhihin waxaan rabay inaan qof dila Sooma maya ma wareysatay inuu xiriir ka dhaxeeyay marxuumka intay iyo eedeysanaha wax xiriir kama dhaxeyn ma ku sheegay inuu aan garanaynin ma garanaynba baarak waa ka baxay su'aashaas baara waxaa tiri intaad warbixinta sameynaysay eedeysanaha wuxuu doontaa tiri qori waxaad sheegtay dhaarka bacdi in eedeysanaha uu jilibka dhigtay ee uu xabada riday maxaa cadeen ah ee aad ka soo qaadatay inuu jilibka dhigtay ee uu xabada riday waxaa cadeynaya maragyada kaamira ma haysaa meesha kaamira kuma dhignaba hadalka markaad bilaabaysay waxaa tiri eedeysanaha wuxuu isku dayayay inuu dalka ka baxsado asaga ma kuu sheegin Sooma asaga ima sheegin aabihiisa gacan ku siiyay ciidanka booliska Sooma guriga ehelkiisa laga soo qabtay Sooma guriga ehelkiisa laga soo qabtay soo quraan la saarayo asagoo quraan la saarayo ma ahan nin dhumaalaysi ama baxsad ku jira xilligaasi Sooma baxsad waa dilo soo geystay asoo baxsad ku jira quraan la saarayay miya waa mahadsantahay waxaa marqaati ka ah oo saldhig u ah Nageeye iyo Cumar Sooma labada marqaati ku dhistay kiiskan maya waa badin falka hamiinkii xabadaha inay dhaceen oo ninkan uu xabada riday waxaa ku sheegay Nageeye iyo Cumar Sooma maragyada kaleba maragyo kale ku sheega ma jiro maragyada dhanaa ku dhaaba labadoo kaliya ma sheegin Nageeye iyo Cumar qofa ahayn oo goobjoog ahaa ma jira waa Cabdiqani iyo Ibrahim Cabdiqani iyo Saabiriin markaa wax ka qoraysay hamiinkaas maxkamaduna dabcan wayba sheegtay ku celcelisay hamiinkaas inaysan goobjoog ahayn ku sheegtay saas ma hano okay wax kale oo ka baxsan oo labadan nin ka baxsan oo sheegaya gabadhaas in hamiinkaas oo goobjoog ahayd oo maaragta sukaansi uu jira ama hadii uu jira haduu rabo goobjoog ay ahayd ma jirtaa qaatiida ku yaaba kulligood waxa ka qoray sheegayaan in gabadha meesha joogta habeenkaas ee Cabdiraxiin iyo sukaansanayeen dagaalka markuu dhacay aabaha dhalay eedeysane Cabdiraxiin ayaa wiilkiisa ku soo simay sharciga si cadaalad loo marsiyo oo xafiiska xeelalinta iyo baaraha ay ka dhawaajiyeen inaad tahay eedeysane aabihiis nacam xarigiisa ninkii ka dambeeyay oo sababtiisa inay ahayd bal noo sharax kiiska wiilkaaga loo haysto iyo xarigiisaba sidoo ku dhacay annaka horta goor 4 saac bar ah allay soo wacay aniga waxaa la yiri arintaasaa dhacday wiilkaadana lagu eedaynaya maadaama sidii lii dhahay aniga waa gurmaday dadka haddee waa dad wada dhashay maadaama Soomaaliya wada dhalatay haddana nimanka waa niman abti u ah ninka darisna waan lahay maadaama sidii ay dhacday canugiina uu cararay oo guri halkaas uu tagay oo habeenka annaka oo gurigiisa uu ka tagay ilaan dilaa lagu eedeeyay waa soo baxay qoladii reebti oo wiilka ka dhinta u nimid isbitaalka Madiina ugu nimid markaan ugu nimid waxaan yiri arintii bal annaka nagu eedeeyay ninkiina waa annaka ana dhalay haliga warsu waxay yiraahdeen waaya wiilkii waa raadi waa wacay waxaan yiri wax socod la yiraahdo ma jira imo
guriga habeertiis leedahay gurigaasaan joogaa iyo ima u dhahay sidii aan marka aan ku helay waa soo wadnay saldhigga waxaan keennay hodan markaan keenay gaariyaa liiga siiyey kaxdaan geynay raggii meydka u yeelay oo ree abtiyaan wacay waxaa yidhi ninka gacantaan ku hayaa ii imaada waa israacnay saldhigga kaxdaan wada tagnay saldhigga kaxda markaan wada tagnay wiilkii waa kana horta ninkii oo ninka lagu eedeeyay waa kana waa la soo qaaday CID la keenay meydkii subaxii dambe waa israacnay waa soo duugnay waa ka soo laaban gogolaan dhignay gogash haddaan dhignay xaal iyo kafan iyo duug waa nagala qaaday soomaali haddee xeer bay leedahay 10kii halaad oo rafiska ahayd abtiyaalow naga qaata intii kale haddaan kasoo heshiinay geeli waa lasoo qiimeeyey 100 halaad hal ma ka tagin ay dhaheen waa ogolnaan lah 100kii halaad waa lasoo qiimeeyey waxaa lagu soo qiimeeyey calaa neef $537.5 waxay noqotay 53,750 ragga waxay yiraahdeen marka annaka wixii oo isku xiran 50,000 oo isku xiran yaan idinka rabnaa ma awoodno maanta walaalayaal dhan kasta daan u dhignay fadhiga nagala kacay haddana odayaal kale baa yimid waxaa la yidhi ciddii waa carootay hala soo caro celiyo haddana fadhi kale hala sameeyo fadhi kalan sameyn fadhigii kale yaa waxaan idhi waayahay waan idin doonaa 100kii halaad waan idin doonaa hiiraan tagay abaar inay dhacday Soomaaliya dhan way ogtahay shacbaan tagay shacbaan soonful siditaal 4 bilood oo abaar ahayd oo xoolaha xataa ay fariistaan waxba la waayay dadkana waskare baadiyo hadda 100kii halaad 20 neef nooga xaraysan 8 noo dhiman waxayna waxa laga rabaa ayka wada kulansan anigana ma awoodo sidaas ay wax u jiraan intaas faahfaahin idin siiyay laakiin aniga maanta kuma dhaaran karo ninkaan dilay kuma dhaaran karo ilaahay anna maadaama lagu eedeeyay dadkana xididnahay wiilka abti u yihiin rag kale asiga la dhashay oo abtiyaal ay u yihiin hal qof iyo 10 qof waa ku kala wanaagsan yihiin niyaho kan iska gee waxaan inaan bixiyo diyaar baan u ah السلام عليكم ورحمة الله saldhigii lagu xiray ma hodan ma amisan hodana marka hore aan keenay hodan waxba loogama qorin kaxda lagu ay baabi fariis ku-xigeenka xeraryaha guud ee ciidamada qalabka sida Dhamme Cabdibaasid Madaale ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha lagu xukumo dil toogasho ah taasoo ah qisaasta marxuum Maxamed Yuusuf Xasan mudane gudoomiye iyo garsoorayaal xafiiska xeraryaha guud ee ciidamada qalabka sida wuxuu ku soo eedeeyay in uu galay laba qodob labadaas qodob oo ah mudane gudoomiye garsoorayaal 434 oo ah dil bareer ah iyo 326 oo ah cabsi gelin dadweyne mudane gudoomiye iyo garsoorayaal waxaan maxkamadda hor keennay markhaatiyaal ku xusnaa xaashida eedda iyo cadeymo ay ka mid yihiin warqadaha caddeynayay sababta uu dhintay marxuumka kiiskan maanta dhibanaha ka ah ee lagu magacaabi jiray maxamed xasan yuusuf wuxuu jiray 17 sano sidaan maxkamadda horteeda ka caddeynay wuxuu ahaa arday wuxuu ahaa muwaadin gurigiisii iyo dariskiisii socda ku soo baxay buuq arkay kadibna ay haleeshay xabad gardara ah oo uga dhacday jeegada kana baxday isha midig taasoo ugu dambeynna salfatay nafsadiisii yareed ee curdunka ahayd ee ubaxa ahayd hadda soo baxaysay eedaysanuhu wuxuu gaclooday gabar dariskiisa ah oo dukaan gadaysay oo maxkamadda horteeda aan keennay balse nasiib darro sida uu asaga aan ka ogaanay aan waxba ula wadin iskana dheereysay xogtii aan maxkamadda horteeda ka sheegnay ahayd in xiriirka la dhexeeyo balse waxaa xaqiiqa ah mudane gudoomiye garsoorayaal gabadha annagoo ku ixtiraamayna teeda sida ay sheegtayna ku ixtiraamayna balse laakiin dhanka cabdiraxiim si hubaal ah ayaan ugu celcelinaynaa waanan ku adkeynaynaa ereyga ah inuu gabadhaasi ahayd gabadh uu gaclooday sababtoo ah buuqii dhallinyarada ee ka dhashay goobtaas wuxuu kalifay mudane gudoomiye garsoorayaal isbitoorihii dowladda hoose ka tirsanaa ee cashuurta loo diray hubkii lagu aaminayay la yidhi cashuurta dowladda ku ilaali waa mushaarkii ciidamada qalabka sida iyo mushaarkii shaqaalaha dowladda waa miisaaniyaddii wuxuu aruurinayo hubkii la yidhi ku ilaali lacagahaad aruurinayso inta uu orday soo qaatay waxaa kalifay in gabadhaasi dhirbaaxsho ay ku dhacday si cad oo shaki la'aan ayaana maxkamadda horteeda uga caddeynay mudane gudoomiye garsoorayaal wixii malaawaalkiisa oo maskaxdiisu ay tustay
ayuu ku dhaqmay wuxuuna ka tegey dhaqankii askari lagu yaqaanay ee askarnimo asagoo oo markaasi la imaaday falcelin dareen wadata oo emotion ah taasoo aan marnaba lagu carbinin marnaba lagu tababarin askari ciidanka qaranka Soomaaliyeed ka tirsan hay-adda doonaha ka tirsanaadee ujeedkiisa iyo rabitaankiisuna wuxuu ahaa mudane gudoomiye inta madax uu tirsaday oo goobtaas ka oroday oo dhalinyaradii meesha imaaday u gacan qaaday gabarta ah in uu dhammaantood aanu hal ka reebin sababtoo ah waxaa caddaynayso marxuumku maba ka tirsaneenba dadkan orodkii uu dhinac ka galay mudane gudoomiye garsoorayaal cabdiraxiin eedaysane cabdiraxiin nuur aadan wuxuu ku dhaqmay wax ka fog askarinimada iyo dishibilinka askari waajibkiisa wax aad uga fog ayuu ku dhaqmay wuxuu hooyo iyo aabba ayuu wuxuu dhaafiyey 17 jir ay ku soo tabceen oo ay wax soo bareen mudane gudoomiye garsoorayaal oo shahaadooyinkii iskoolkii iyo wuxuu baranayaan maxkamadda u soo bandhignay lacala biritole madaxdii waddanka u noqon lahay taliye ciidan u noqon lahay madaxweyne u noqon lahay mustaqbal u lahay cunugaas mudane gudoomiye garsoorayaal mas'uuliyaddaas waxaa qaadanayo eedaysane kormeero saddexaad dowladda hoose cabdiraxiin nuur aadan ayaa qaadanaya mudane gudoomiye mas'uuliyaddaas sida xafiisku uu ku soo eedeeyey qodobada 434 iyo qodobka 326 horta ma galay haa waana caddaynay 326 waa galay asagaaba afkiisa ka qirnaayo xabadaha kor uridu leeyahay xabadaha kor uridaysid waa yeelaa xanuunsanayo oo ku sasay isbitaalaha ku yaala xaafad waay goob la seexdo waay guriyo waay xaafada si xabad ugu dhexdiisa horta kaas waa galay afkiisu isku la qiraal yahay halka labaad kaas uu galay ayuu ka dhashay xabadii uu riday ayuu ka dhashay dilka bareerka ah mudane gudoomiye garsoorayaal maanta waxaa cadaalad nooga fadhiya marxuum maxamed xasan yuusuf in aan marxuum maxamed xasan yuusuf laga reebin eedaysana cabdiraxiin nuur aadan oo mudane gudoomiye garsoorayaal loo qisaaso laguna xukumo dil toogasho ah qareennada oo qaatay doorka difaaca muwakilkooda ayaa gabagabada soo jeediyey in maxkamadda ay tixgeliso wada hadallada labada reer u socda inaan mid u istaago sababaha aan u istaagayane waxaa mowduuc u ah cabdiraxiin ma galin dembiga lagu soo eedeeyey ma laha mas'uuliyad eeda labadaas markii la helo ma aha dembiile waxaan rabaa inaan saddexdooda mid u kor istaago ma galin dembiga lagu soo eedeeyey marka aan leeyahay waxa waaye ma jiro eed dul saaran ee lagu dhisay markhaati iyo caddeymo iyo baaraha kiiska gungaarkiisa waxaa meeshaas ayada aan u istaagaa aan leeyahay markhaatiyadii maxkamadda la hor keenay ee kala ahaa cumar faarax iyo nageeye axmed ereyada halkan ay ka sheegeen waxaa baabi'iyey erayadaa ayaga ah sabriin oo markhaatigii saddexaad ahayd saddexda markhaatina xaanshida eedda kuma qorna sababta ay xaanshida eedda ugu qornaan weysay su'aal waaye dadkoo dhan inay isweydiiyaan sababtu waxay tahay eedaysanaha sida xaanshida eedda ku qoran waxaa xurriyadda laga qaaday 20kii bishii 10aad 2025 oo Oktoobar ahayd maantana waxaan maroynaa 2dii bishii 8aad 2026 10 bilood iyo maalmo waaye 10 bilood iyo maalmo haddii lagu waayey ama lagu keeni waayey ama xog looga qori waayey cumar faarax iyo nageeye iyo sabriin waxaa meesha ayada ah cad in ay yihiin dad si gaara xafiiska oo u wacay oo ayan ahayn markhaati
nageeye iyo cumar waxay tilmaameen goobtaa ayada ah siiba cumar wuxuu tilmaamay goobtaa ayada ah in galabnimadii 4tii iyo barkii galabnimo isagoo gurigiisa daaradda fadhiyo buuq iyo qayle iyo ay ka dhacday gabari lala fadhiyey gabadhii maxkamadda la hor keenay waxay tiri meelaan fadhiyey ma laha buuq dhacay aniga aan qayb ka ahay ma jirin cid dhar baaxday oo daankayga taabatayne ma aysan jirin taasi waxay ku tusaysaa ama ay caddaynaysaa in aysan jirin baaris rasmi ah ee lagu dhisi karo ama loo qaadan karo ama lagu dhisi karo go'aan lagu gaari karo maraggii halkan la keenay maxkamadda inay qaadan karto middaan ah baaraha kiiska wuxuu caddeeyey ama uu sheegay inay jirtay shaqaaqado ee uu ka qoray xasan cumar maxamuud inuu wax ka qoray cabdulaahi bare xasan iyo inuu wax ka qoray cabdinaasir ismaaciil maxamuud raggaas ayaga ah maxkamaddu markay mid u wacday sidoo kale maxamed cabdi maxamuud maxkamaddu markay wacday markhaati ahaan u wacday waxay dhaheen annagu ma joogin markhaati kama nihin hanana nabadgeliyo baaraha kiiska wuxuu caddeeyey in uu ayaga wax ka qoray ee uu kiiska ku dhisay waxay tusaysaa marka in baarista CID-da ay samaysay in ay tahay baaris habawsan markaan u soo laabto eedda xafiiska xeer ilaalinta iyo baarista gungaarkiisa inta markuu ka akhrinayay waxa uu ka qoray waxay ahayd gungaarka in la soo qaado ee xafiiska xeer ilaalinta baarista eeddiisa lagu soo muujiyo ama ay ku caddahay mudane guddoomiye garsoorayaal warqadda xaanshida eedda kuma qorna caddaymaha la rabo in xafiiska uu adeegsado qiraal laga qoray eedaysanaha ee uu ku qiransan yahay inuu si ugu talagal ah master x ama allaha u naxariistee marxuum maxamed xasan yuusuf inuu xabad kas ah ula kac ah oo ku riday ma jirin taas marka waxayna tusaysaa in eedaysanaha xabadihii la dhahay waa uu riday ee uu tilmaamay cumar faarax sargaalkii ciidanka ee halkan ka markhaati kacay ee uu yidhi 3 xabadood ayuu dhulka ku dhuftay aan u qaadanno 3 xabadood in dhulka lagu dhufto 3 xabadood oo dhulka lagu dhuftay baaristi iyo xafiiska xeer ilaalinta intuba ma sheegin laakiin waxay tilmaamayaan wax ka gedisan oo ah in jilib dhulka la dhigtay in shiish la saaray in xabad la riday waa goob dagaal waaye goob dagaal markii la joogo waaye caruur yaryar ee aanan waxba haysanin ee hadda la leeyahay waa u geeriyooday allaha u naxariistee marxuum maxamed xasan waanu ka xunnahay annaga in 19 jir xabadi ku dhacday oo u geeriyooda laakiin waxay ahayd 19 jirka xabadda ku dhacday sababteeda cidda leh sababta xabadda loogu dhuftay natiijadii soo baxday in la helay ahayd oo sababaha markii la tixo natiijadii laga dhex arki karo ama laga heli karo natiijadii la leeyahay waxa xabaddaba loo riday oo natiijo u ah xabaddaas inay dhacdo amaba kiiska oo ka bilowday waa gabar mana jirto gabadhii waxay tiri ma jiraan dhacdada meesha ay ka dhacayso waa gurigooda hortiisa guriga waxaa ka furan dukaanka waxaa u furan albaabka dukaanku wuxuu leeyahay guri gudaha albaab gudaha looga aado reerka ay kaga dhaqmaan qayladii buuqii dhacay ma maqli waayeen reerku qaylada iyo xabadihii dhacay reerku ma maqli waayeen ma lagu soo bixi waayey cid sheegtay gabadha ayada ah inay goobtaasi joogtay ma jirto maragga dadka ay tilmaamayaan sabriin ma aha ee cid kale waayo waxaa muhiim ah in la helo natiijada wax natiijo ah oo hadda la keenay oo la leeyahay xaaskiisaa dhib loo geystay walaalkiisaa dhib loo geystay aabbihiisaa dhib loo geystay walaashiisaa dhib loo geystay intuba ma laha sargaal xigeenka cumar wuxuu tilmaamay in loo sheegay
inay qofi xabad ku dhacday laakiin ma sheegin inuu maqlayay xabad kale oo dhacday oo u eg inay qofi ku dhacday ama derbi ku dhacday ama ay meel ku dhacday ma uusan sheegin saddex xabadood uu tiriyey saddexdii xabadood uu sheegayna dhulkuu ku tilmaamay waxaa ayadana wax oo muhiim ah oo loo baahan yahay in la soo qaata ay tahay waxa waaye mudane guddoomiye kiiskan xilligii uu dhacay waxaa baare ka ahaa Israafiil baare la dhaho oo CID-da ka tirsan ninkaas asagaa wax ka qoray asagaa la fadhiistay kiiska asagaa ku dhex jiray ma garanayna anaga baaraha maanta nala hor keenay oo ah baare E4 ma garanayna kiiska meeluu ka soo galay sababtu waxaa waaye baare 4 kiiska oo wato waa kiis ula kac ah oo meel kale oo kasdhaaf ah oo si kale u dhacay oo meel kale ka dhacay marka xujo waxaa ah marka haddii aanan lahaynin eedaysanaha asagoo qof xabad ku dhufanaayo ama xabad ku ridaayo haddaan lahaynin haddii asaga uusan sheegaynin inuu master X oo xabad ku dhuftay haddii aysan jirin dadkii la socday oo ayan dhihi karin ninkan wuxuu xabad ku dhuftay nin nala socday ama cunug nala socday haddii dadkii xaafadda ay garan waayeen wiilashan socdana ay garan waayeen qofkii ay xabadda ku dhacday laakiin ay dhaheen waxaana looga sheegay telegramka ama waxaan ka maqalnay khadka ama dadaan noo sheegay aniga intaan ku soo dhammaynaa نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر صوت قلوبته إلهي بعد العضو محكمتنا هرتي إذا وحي الله وعي عدالتنا أيوه رادين سوى حواي إن ضدك أيوه كلا جر نقضه وح هرتي إذا كده عنا أيوه جر نقضه سيد رادين متجرين وح أو مارتا لتكو كيسك أفر بوصلي أفر عدينا وح صار قدومي دعضة وكحولنا ويل كيركا أو نفكس جاري وح أنت السيدة أو قبل الأهرب أنا قدره waxaa jiro wada hadallo oo familiyan ah sababta saa ogtihiin wax badan waxa lagu xaliyaa dadku familka way wada hadlaan diyadii iyo waxba isla gaaraan waxaa jira marka wada hadallo oo labada familba ka dhaxeeyo oo ay isla soo dabcan wax un ay kala gaareen oo gacantoodu dhinaca kale gacantiisa ay gaartay laakiin diyadii ay bixinta kayfiyada loo bixinayo ay isku khilaafsan yihiin oo ah hal mar wada shuba iyo step aan u bixinayna aan ku heshiino taas wada hadalladaas marka waxay keenayaan kiiskii shubhadu ku jirta oo shakiga weyn ku jiray oo aan 434 wax lagu cadeynaa hadda aan la haynin in looga kaaftoomo oo ah in diyadii la baxsho familka jaanis ay u helaan laba famil inay wada hadlaan taasoo abuuri karto in laga kaaftoomo qodobadan aan hadda cadeynta rasmiga loo hayn sidaa daraadeed waxaa maxkamadda sharafta ka codsanaya oo aan kiiskii ku soo koobaya maadaama aysan jirin cadeyn hadda lid ku ah oo maxkamadda horteeda ka dhacday maadaama ay iskhilaafeen gungaarkii iyo eedda ay iskhilaafeen oo gungaarkiina uu sheegay sargaalku inuu ku soo gudbiyay 441 eeddana lagu sheegay 434 taasoo keeni karta dayacaad weyn sababtoo ah sargaalkii baaraha intuu 441 keenay inuu xafiiska xiraanta 434 u keeno ma badhici kartaba sababtoo ah ninkii kiiska la baashirayba oo tuudiga baxsay oo waqtiga baxsay oo kiiska soo baaro hal sano baaray 441 كان taasna waxa ka dhalanaya waxa waa diyo maadaama marka labadooda ay iskhilaafsan yihiin maadaama wada hadallada aan sheegay ay jiraan inayna bilowdeen natiijadeedana aan rajaynayno inay si fiican u soo gabagabowdo maadaama aan hadda wax lid nagu ah aysan jirinin waxa maxkamadda sharafta la ka codsanaya kow in kiiskan ay maxkamaddu u aqoonsato in uusan jirinin 434 oo ay u aqoonsato sida uu asagu uga jawaabay inay maxkamaddu u aqoonsato 434 bataatanba inaysan jirinin oo ay u aqoonsato sida uu asaguba uu sheegtay inaysan jirin wax caddayn oo lagu sugaayana aysan jirin maxkamadduna sidaas ay u tixgeliso xafiiska xiraanta uu ku soo eedeeyay abukaatayaashaada waa ku difaaceen markhaati kala duwana la dhageystay baara la dhageystay aabbaha waa la dhageystay goobjooga ahayd maxaa ku baxay waxaa ii baxay xeer ilaalinta iyo baaraha karaamsiin alla horta meesha dhibaatada ka dhacday marka la soo fiirinayo karaamsiin qaldan oo aan waxba ka jirin ee horta meesha ii keenay maxkamadda waxaa ka codsanaa ayadoo fiirinaysa aniga dhibka ii haysto 10 bilood aan xiran ah inay xorriyaddeeda i siiso maadaama muwaadin dhiban ah marxuumka inta xaqiisa inta dhiigiisa inta la geenaa
marxuumka dhintay aniga haddaad dili waa dilaa dhihi lahay xabadba waaridaa ku dhahay moo waa akhire lahay aniga goobta xabadda ka ridde xilliga iyo goobta iyo taariikhda adiga xabadda ridde dad kaloo ku garab joogay ama kaa soo horjeeda oo xabada ridde ma jiraan haa xabado waa dhaceen habeenkii qaabkee u dhaceen xabadaas kolley horey ka soo dhaceen dhinaca u dhaceen iyo adima kugu soo ridaayeen may adima ku ridaayeen dadkaas anina ayaga kuma rideen wax cadow iyo ama wax qof cadaawad u qaba ama qof aan qasad ka leeyahana maba jirin laba markhaati oo inta la keenay oo Cumar Cali Faarax iyo Nageeye Axmed Maxamuud waxay sheegeen inaad xabada riday kadibna aad jilba jabsatay mar labaadna aad xabada baasa riday ciyaal si ordayna aad ku riday marxuumkana oo meeshaas ku dhintay cid ka soo horjeeday ama garabkaaga ahayd oo xabada riday ma jirtaa cid iga soo horjeeda ma jiraan laakiin xabada waa ay dhaceen habeenkaas laakiin ani qof iga soo horjeeda dagaalamayna ma jiraa ku dhamadana garsoor maxkamadda maxaa ka codsaneen maxkamadda waxaa ka codsanaa inay xurriyadeeda isiiso garsoore gaashaanle dhexe Maxamuud Sama Jecel ayaan ugu dambeyn fadhigan soo xiray Cabdi Fataax Akhyaar warbaahinta qaranka Muqdisho.